markaan waa markii labaad aan Uganda imid oo si sharaf leh oo wanaagsan aad ii soo dhaweyseen muddo laga joogo dhowr sano ka hor yaa waxaa la qabtay survey ama daraasad oo cod qaadis ah waxa loo codeeyay Soomaali waxay hore u oran jirtay gaajo gobonimo leh iyo waxa loo codeeyay dhereg gunnimo leh boqolkiiba boqol waxay u codeeyeen tan hore gaajo gobonimo leh macnaheedu waxay tahay qofka Soomaaliga wax walba waxa uga horeeya sharafta taas waa dadkii hore dadka hadda maanta joogay maxaa u yaala marka waa xaqiiqa annaga visionkeena dawladnimo waxay tahay sharafkii Soomaaliyeed inaan soo celino maxaa yeelay dawladdu waa muraayadiina way asku fiirinaysaan sida ay u egtihiin iyo ka turjumaysaa dawladda waxaan aaminsanahay wali dadkii fiicnaa oo aaminsanaa inay gobonimada ka doortaan maxaan ku raahdaa gunnimo ka doortaan wali waa joogaan waa idinka waa soo taaganna qayb ahaan wixii naga burburay oo dawladnimada ahayd way inaan ka bilaawno marka maxaa yeelay Soomaali waxaa lagu daydaa waalidka lagu daydaa haddii dawlad aan nahayna dawladda lagu daydaa marka hadba dawladda sida u eg tahay ee shacabku u ekaanaysaa marka u ekaanayaan marka waxaan ugu ballana annagoo magaciina mathalayna inaan sharafkii iyo qabkii Soomaalinimo aan soo celino intii rabtaan ugu qaadato dawladnimadiinu qiimo yeelanaysaa sharafkii Soomaaliya waa soo noqonaya laakiin waxa naga qasay nabadgelyadeennii iyo ammaankeennii iyo noloshii aan adduunka kale kula tartami lahayn waa intaas dhalinyarada ah oo runtii fakar khaldan haysata saad ogtihiin waxaan u fiidanaa cafis macnaheedu ma aha anagu naftigeena inaan rabno inaan leyno maxaa yeelay wiilasheenii weeye waxaan u fiidanaa cafis inay noo yimaadaan oo ay ka qayb galaan horumarka iyo dhismaha dalka waana sugaynaa inkastoo ay soo bilaabanayaan hadda inay soo dhiibaan walaalayaal marka amniga Soomaaliya sugitaankiisu Soomaaliya kaliya ha ku haleynna idinku naftigiina mas'uuliyadda ka saaran maxaa yeelay waxaad sugaysaan inay Soomaaliya degto aad ku soo noqotaan marka si kasta dalkan aad amnigiisa aad qayb uga qaadan kartaan si kasta annagu aad qayb noogala qaadan kartaan amniga Soomaaliya waa wax loo baahan yahay maxaa yeelay waxay soo dhaweynaysaa xasiloonida iyo ammaanka Soomaaliya soo dhaweynaysaa beesha caalamku waxa hadda ka go'an inay gacan siiso waxayna gacan noogu siinaysaa sida annaga aan ula dhaqanno iyo sidaan ula imaanno waxay hadda naga aragtaa shacab iyo dawlad iswata oo isku duuban dhalinyaradu haddaad doonaysaan leadershipka Soomaaliya iyo mustaqbal fiican in Soomaaliya ay hesho fadhigan aad ka kacdaan oo aad qayb ka soo noqotaan dawladnimadan hadda socota hadday noqoto dhigna u daadisaan maxaa yeelay kuwa hadda dibadaha ka imaanaya oo shisheeyaha ah oo shabaabka ku jira waa dhalinyaro idinka oo kala ah oo laakiin naftoodu waxay u hurayaan idinka iyo walaalihiin iyo kuwa Soomaaliya jooga in nolol u diidaan idinkana hadda toosh idinku hayo oo la yiraahdo kan ma terrorista mise ma aha adoo shaqaysanayo horjeeda wax kale ma aha maxaa yeelay dhalinyaradii ka hortagi lahayd yaa fadhida oo sugaysa inuu qof Ilaahay cirku uga soo diro oo u kalin gareeyo dhulkii